xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ka hadlaya shirweynaha golaha dhexe ee ka socda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa dhaliilo culus u jeediyay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland uu galgudeenka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu soo hadal qaaday colaadda ka taagan Ceelaf Weyn taasoo uu sheegay inay ka dambayso xukuumadda Soomaaliland sidoo kale gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxa uu ka hadlay xorriyadda qowlka kaasoo sheegay Jamhuuriyadda Soomaaliland inay u geysatay xadhigyo fara badan xorriyadda qowlka waxaan uga digayaa madaxweynaha dariiqa uu qaaday inuu yahay mid aan hor loogu jabay oo aan lagu guulaysan taladaydu maanta waxay tahay inaynu kulligeen isu taagno badbaadinta dalkeenna oo ka fogaano qabyaaladda oo waxa kaliya ee qofku marka uu fashilmo uu gabood siyaasadeed ka dhigto qoys iyo qabiil uma guulaysan karno laakiin waxaynu u guulaysan karnaa ummad ahaan ayaynu u guulaysan karnaa sidaa daraaddeed halku dhega sanadkan ee shirka waxa laga dhigay isku haynta dadka iyo dalka waxaana curiyay mujaahid barxad marka mujaahidin la soo qaado qoladii SNM baa la xukum ayaa la xusaa laakiin waxaan xusayaa mujaahidiintii dalkan ugu horeysay Soomaaliland waxay hayeen daraawiishta anigoo ka duulaya wadajirka ummadda waxaan si buuxda u taageerayaa fulinta iyo meelmarinta heshiiskii xukuumadda kulmiye la gashay khaatimo fulilaanta heshiiska khaatimo waa khaatimo ha iska tagto si daawo loogu helo tabashooyinka iyo isu dheelitir la'aanta waacaha qaranka loona abuuro shacbi gacmaha isu haysta qarannimo iyo dawladnimo loo siman yahay oo wada ilaashada waxa waajib ah in wax laga bedelo dastuurka qaranka oo dermada siyaasadda si dermada loogu wada fadhiisto waxa shacbiga kala fogeeya uma baahan waxa khasaaray noogu filan kelimadii uu yiri taliyaha ciidanku ee kii wada jalaadisay Soomaaliland ay kuwa tagayna iska tageen kuwa kalena ka daba tageen Maxamed Yuusuf Cabdilaahi Maxamed Wardi Somali Cable TV Burco